haddii aad maanta ku nooshahay magaalada Muqdisho ee aad rabtid inaad furato koonto bangi ama akoon, su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay: maxaa kugu riixaya doorashada bangi gaar ah? Ma tayada adeegiisa, ma sumcadda bangiga, mise helitaanka baranjiska iyo ATM-yada bangigaas? Maanta waxaan sharaxaynaa cilmi baaris si gaar ah looga sameeyay Muqdisho, taasoo si qoto dheer leh u baaraysa arrimaha saameeya marka macaamilku go'aansanayo inuu doorto bangi. Sida la wada ogyahay, bangiyada Muqdisho waxay ku jiraan tartan aad u weyn oo sii kordhaya. Adeegyadu inta badani way isu dhow yihiin oo farqi aad u weyn uma dhexeeyo. Sidaa darteed, bangi walba wuxuu u baahan yahay in uu fahmo sababta macaamilka ka dhigaysa inuu isaga doorto. Daraasadani waxay diiradda saaraysaa 3 arrimood oo waaweyn: 1. Tayada adeegga; 2. Sumcadda iyo sawirka bangiga; sidoo kaleente helitaanka iyo fudaydka adeegyada. Daraasadani ama cilmi baaristani waxaa sameeyay Dr. Ciise Suudi Maxamed iyo asxaabtiisa, waxaana laga sameeyay magaalada Muqdisho, ayadoo la wareystay kastamar gaaraya 80 qofood oo kala isticmaala bangiyada kala duwan ee ku yaala magaalada Muqdisho. Natiijooyinka ugu waaweyn ee ka soo baxay daraasadani ama cilmi baaristani waxay ahaayeen: 1. ama marka horeete tayada adeegga. Tayada adeegga wuxuu noqday qodob aad u muhiim ah oo saameyn ku yeesha in la doorto bangi. Macaamiishu waxay si gaar ah u qiimeeyaan degdegga adeegga, saxnaanta macaamilka, iyo shaqaale xirfad leh oo u adeega. 2. Sumcadda bangiga iyo sawirkiisa suuqeed ayaa isigana ka qaata door muhiim ah. Macaamiishu waxay rabaan bangi leh xasilooni dhaqaale, sumcad wanaagsan, iyo kalsooni la isku halayn karo. Qodobka ugu dambeeya ee natiijada daraasadani waxay sheegtay helitaanka adeegga iyo fudaydka laamaha ama ATM-yada ee bangiga ayaa saameyn weyn ku leh doorashada bangi. Haddii jaamacadaada, shaqadaada, ama xaafadaada ay u dhowdahay bangiga, waxay saameyn ku yeelanaysaa doorashada aad dooranaysid bangigaas. Sidoo kaleente, fudaydka furashada akoonka iyo saacadaha shaqada oo habboon ayaa saameyn ku yeesho doorashadaada. Waxaa kale oo daraasadani ay muujisay helitaanka adeegyada dhijitaalka ah sida mobile banking ama online banking-ka inay saameyn buuxda ama togan ay ku leeyihiin doorashada macaamilka. Taasi waxay muujinaysaa in bangi aan la jaan qaadi karin tiknoolajiyadda casriga ah uusan si buuxda uga muuqan tartankan ka jira bangiyada Muqdisho. Maxay tani ka dhigan tahay? Natiijooyinkani waxay fariin u dirayaan bangiyada ku yaala Muqdisho. Guushu kuma imaanayso hal arrin oo keliya. Waxaa loo baahan yahay isku dheelitirnaan u dhaxaysa adeeg tayo leh, sumcad wanaagsan, iyo helitaan fudud. Bangigu waa inuu si joogto ah u horumariyaa shaqaalihiisa, una dhisaa kalsoonida ama sumcadda suuqa, sidoo kaleentana u maalgashadaa adeegyada dhijitaalka ah ee casriga ah. Ugu dambeyn, cilmi baaristani waxay si cad u muujisay in doorashada macaamiisha bangi ee Muqdisho aysan ku salaysnayn hal arrin oo keliya ah, balse ay tahay isku darka tayada adeegga, sumcadda bangiga, iyo fudaydka helitaankiisa. Haddii aad ka shaqayso bangi ama aad doonaysid suuq-geynta adeegyada maaliyadeed, qodobada daraasadani ay soo saartay waxay muhiim u yihiin horumarka waara ee mustaqbalka adeegga ama bangiga aad ka shaqaysid.